hadda waxaan u gudbaynaa qaybta macaamiisha. Macaamiishu waxay khusaysaa lacagaha laga qaato ama adiga lagu dhiibto ama aad soo amaahatid ama aad laga amaahdo. Waxay faa'iido dheeraada ku tahay qaybtani oo abkani uu gaar ugu wanaagsan yahay kuwa kale oo dhan si gaar ah loogu amaani karaa. Waa marka koobaad horta waa book jeebka kuugu jira meesha aad notebook iyo wax barbaari lahayd ama bugaag iyo warqado kala luma iyo adoo iska socdo qofkii haddaad iska soo horbaxdaan xisaabtaadii toos baad ugu sheegi kartaa. adoo xafiiskaaga ama meeshii ka maqan markii aad qofka uu soo waco ama wada hadashaan toos baad xisaabtaadii u heli kartaa. macnaha xisaabtii oo kula socoto weeye horta waa mar iyadoo dhammaystiran waqtina kaa qaadanayn. waa marka labaad waxa uu si gaar ah ugu ammaanan yahay waxa uu kula socodsiinayaa ballantii lacagta muddadii loo qabsaday oo aad ku tala gashay inaad lacagta qofka ka raadisid. misalan qof baad lacag siisay bisha aakhirkeeda aad ballantu ahayd ballantii inta aan la gaarin 3 maalmood ka hor ah waa u sii diyaar garoobaysaa isaga ku sii sheegaya. midda kale qofkii haddii uu rabo inaad xisaabtii u dirtid oo aad la wadaagtid xisaabtii itus hadduu ku yiraahdo si toos ah aad ugu diri kartaa ama email ugu diri kartaa ama hadduu whatsapp leeyahay ugu diri kartaa ama fiberka waxyaabahan lagu wadaago faylasho dhan haddaad doonaysid waxaad ugu diri kartaa ababka hadduu ka agdhow yahay misalan C-share iyo senderka iyo CM transfer iyo share it iyo programyada la yiraahdo dhan waad kula wadaagi karaysaa faylkii isaga waxay ku xisaabinaya si sahlan ugu tuuraysaa. marka waa arrin aad u fiican u wanaagsan una dhib yar oo ah buuggii dhammaa oo xisaabaadka hadda misalan makhaayadaha dadka baabuurta bakhaarada ganacsatada badanaa garab raratada iska ahoo dhan waxaasoo dhan iyagu xisaaba male siduu u anfacaya sababtoo ah jeebka ugu jira waxa la wixii kaasoo horbaxana horaad ka gelinaysaa. qofkii markuu kaasoo horbaxana horay baad xisaabti ka helaysaa adoon waxba raadin. aan hadda gudagalna bal tusaalaha waxaad taabataa meesha ugu sarreysa oo darka ah oo bergerka sare ah isagaan taabtay macaamiishaan tagayaa customerska halkaa waxaa ka muuqda darkii hoose oo submenuga ah. submenugaasaa taabanaysaa waxaad arkaysaa waxyaabo fara badan oo aad isticmaali kartid oo macaamiil cusub aad ku dari kartid gidigooda inaad tiraahdo ii wada taxbal horta cidii macaamiishayda oo dhan wixii ku jira oo dhan iyo xisaabaadka sida ay sii kala yihiin oo qaybaha dambe aan u galno macaamiisha cusub. magaca geli horta waxaad tiraahdaa cali baan leeyahay tusaale cali mobilkiisaan dhahayaa misalan eber 66 1 2 3 4 5 6 7 baan iri lacagta uu ka qaatay misalan waxaad tiraahdaa $350 buu iga qaatay halkaas si fiican u eeg waa adaa siiyay ama isaga ku siiyay oo ku dhiibtay labada meelood baad kala dooranaysaa. hadda adigu lacagta ka soo qaaday isaga ku siiyay qof kana ku siiyay haddii adiga aad siisayna meeshiisaas u daynaysaa. waayahay waxa uu ku qaatay wax xusuus waad ku darsan kartaa hadda aragtid basta turki dheh misalan tusaalan ka soo qaadaya ballanta aan dhiganay waa goorma ballanta aan dhiganay bisha aakhirkeedaan dhiganay 30ka bisha November baan ka dhigtay misalan tusaale ana siiyay xisaabta maxaa ku soo baxaya waxaad amaahisay cali lacagta inta la eego sida ballantuna markaa tahay ma hubtaa halka waxa ka muuqda 4 maalmood inay u harsan tahay magacii qofka telefonkiisii lacagta uu qaatay tiradeeda lacagta hadda ku taagan. waayo qof labaad baan gelinayaa kaba soo qabo waxaan iri cumar baan iri cumar dheh cumar halkaana waxaad tiraahdaa mobile kale eber 62 1 2 3 4 5 6 baan iska iri 7 halkaa waxaad tiraahdaa naafto dheh kaba soo qabo tusaale wax aad ku xusuusan kartid halkaa waxaad tiraahdaa marka ballanta goormaa dhigateen waxaad tiraahdaa kaba soo qabo 10ka bisha soo socotaan ka dhigay lacagtu waa $600 okay baan leeyahay
qof saddexaad aan ku daro Yusuf baan iri kaba soo qabo Yusuf baan iri mobilkiisa eber 6 hal tusaalaan soo qaatay lacagtan waxaan ka dhigayaa inaan anigu ka qaaday ninkan oo ii dhiibtay waxaana weeye $1,000 weeye $1,000 weeye haa baan iri xisaabtu sida ay kala tahay muuqaalka horta fiir si fiican u eeg halka maxaa kaaga muuqda lacagaha qaybina waa casaan oo waa wax ka baxay waliba waa minus oo waa taban tahay qaybina waa madow oo waa togan tahay waa plus halkan waxa kugu soo baxaya dhankan waxa ku qormaya maalmaha dhiman lacagta muddadii lagu ballamay haddii aad lacagta adiga ay ku soo gashay oo lagu dhiibtay iyadu wax muddo ah khasab ma aha laakiin hadiiba ay ka baxayso lacagta way ku ilaalinaysaa waa inaad muddo ku qortid cali baa ku yimid 350 bay ahayd wuxuu ku keenay 280 buu ku keenay kaba soo qabo halkan si fiican u eeg keenay iyo qaatay wuu keenay lacagtii lagu lahaa ama mid hor loo ka qaatay waayahay wuu keenay baan iri maxaa ku soo baxay 70 baa ku harsan ballantii isma bedel haddii aan taabto mar kale halka waxa kaaga soo baxaya xusuustii aan ku qortay oo baasta turki ahayd muddadii la ballamay oo halkaas ahayd iyo lacag uu qaatay oo casaan ahayd minusna ahayd macnaha waana tabnayd waana guduud laakiin qaybtan kore waxa kaaga soo baxaya waa lacag uu keenay waa madow waana plus macnaha waa togantahay waxa soo dhan xisaabtan hoose hadaadan eegin oo inta kore kaliya eegtid sare waxa ku soo baxaya magacii iyo lacagta hadda ku taagan ku harsan ba ku soo baxaysa waayahay mar labaad buu ku yimid oo wuxuu ku yiri warniyahow lacagtii ma heli karo xilligii waxba iga si ah $70 muddada hal ii bedelo muddada bedelaysan macnaha wixii lacagtii baad ka weyday kaba soo qabo 5 bish soo socotaad ka dhigtay oo 5 maalmood baad ugu dartay muddadii hadda ahayd ballanta cusub waka halka maxaa kaaga soo baxay bish 4 maalmood baa harsanayd 9 bay noqotay macnaha qofka muddadii baa la gaaray lacagtii waa ka weyday muddada kaliya bedelaysaa waqtigaad u bedelaysaa taariikhdaad bedelaysaa waa garanay qofkana ku yimid Yusufa waxa uu ka qaatay waxaad u haysay $1,000 adaa hayay lacagta 750 uu ka qaatay maxaa halka ka soo baxay 250 baa u harsan 250 baa u harsan haddaan taabto iyada waxa meesha ka muuqanaya lacagtani waa midii aniga soo gashay oo la ii dhiibay tanna waa casaan oo midii la iga qaaday waana minus oo waa taban tahay mar kale ku yimid wuxuu ka qaatay 180 buu ka qaatay 7 macnaha halkaas waxa had iyo jeer ku oolaya wajadan waxa mar walba kuugu taagnaanaysa lacagaha dadka qofka iyo maalmaha u dhiman iyo lacagtu waxa ay tahay hadii ay casaan ku tahay macnaha deyn baad ku leedahay weeye adaa wax kaaga maqan yihiin hadii ayna ahayn oo ay madow tahayna waxba deyna kuma leeyahay qofkaas oo lacagta adaa lagu leeyahay aday kula taala intaas waxaan ku fahmnay oo ku yasirnay ku sahlnay fahamka lacagaha iyo dhaqdhaqaaqooda waxaan u gudbi doonaa sida aad qofka statementkiisa ama qiraalkiisa ugu diri kartid oo la wadaagi kartid